job safety. I'm going to be a father. I'm going to start a new job. I will read this later. I'm going to celebrate now. Hi, Rick. Hey, Alejandro, how you doing today? Great. This is the happiest day of my life. I'm going to be the new assistant manager of La Delita, and my wife is going to have a baby. Hey, congratulations. Thanks. I want to celebrate. Give me your best. Rick's Special Lemonade. Rick's Special it is. When do you start your new job? In 2 weeks. I'm very excited. Except the owner gave me the silly thing to read. Oh, job safety, huh? I read something like this too when I started here. I learned a lot. Really? Absolutely. I thought I knew everything about job safety, but I... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. soo dhawaada meel kastoo joogtaan insha Allah taala waxaan ku jirnaa waxa weeye waa English for all waxaan qaadan doonaa lesson 2 cashka labaad waa digsiga qaybtii lixaad conversation wada sheekaysi kuna saabsan Rick's Parka Rick waxa weeye waa nin magaciis Rick's asaas la raacayna waxa weeye waa lahaansho waa parkii markaa Rick's Park oo ku saabsan yahay markaa waana maalintii koowaad ee Ramadaan soo dhawaada meel kastoo aad joogtaan cashkan waxa weeye lesson 2 cashka labaad artiga qaybta lixaad conversation shaqaysi Rick's Park oo ka dhacaya Parka Rick markaa sadaqtii ninka odaga uu faraxsanaa shaqo cusub helay xaajadiis waxa tiri caruur baan cawsh ku sidaa marka farxadii buu ku jiraa marka kaligii buu guriga looga tagay marka kaligii baa marka faraxsan marka halkaas uu ka bilaabanaya Alejandro faraxsan oo marka qolkiisa yaani ku laabtay oo fadhiisanaya ay hawshan uga bilaabanaysa marka waaye marka markuu fadhiistay wuxuu soo qabtay waxa la yiraahdo warqadii ay u dhiibtay yaani waxa weeye Miss Gilmer oo ahayd job safety marka wuxuu leeyahay oo soo qabtay warqadii wuxuu yiri job safety badbaadada shaqada ka bacdina oo iska dhigay wuxuu yiri I'm going to be a father waxaan noqonayaa aabo I'm going to start waxaan bilaabayaa a new job shaqo cusub I will read it this letter warqadan waxaan akhrin doonaa mar kale marka waqti dambe ayaan akhrin doonaa letter waa dambe muxuu yiri Alejandro job safety badbaadada shaqada intuu warqadii eegay I'm going to be a father waxaan doonayaa inaan noqdo I'm going to be waxaan noqonayaa going to waa future I'm going to be waxaan noqonayaa a father aabo I'm going to start waxaan bilaabayaa a new job shaqo cusub I will read waxaan akhrin doonaa this yani waxa weeye warqadan oo job safety ah letter waqti dambe waqti kale markaa letter waqti kale oo dambe markaa kabacdi jeebku ku ritay warqadii markaa yani wuxuu leeyahay I'm going to celebrate now hadda waxaan doonayaa inaan dabaaldego markaa I'm going to celebrate waan dabaaldegayaa now hadda markaa I'm going to celebrate hadda waan dabaaldegayaa waliya markaa Alejandro marka uu soo baxay wuxuu tagay parkii Rick oo shaqadu ka dhacaysay ninkii odaga ahaa Cosmo Miller oo u shaqeyn jirana waxa weeye ninka odaga ahaana yani power system wuxuu arkay soo gaadhistu wuxuu arkay ninkii oo baar galaya oo meel sar ka arkay marka Alejandro marka wuxuu galay yani baarkii wuxuu leeyahay hi waa ku salaamay Rick oo marka Rickna wuxuu yiri hey Alejandro waan ka qaaday how are you doing today how are you doing sidee tahay today maanta Alejandro wuxuu leeyahay great waan wanaagsanahay great good bay lama tahay this is the happiest day of my life waa maalinteedii ugu farxadda badnayd ee noloshayda markaa this is the happiest day waa maalintii ugu farxadda badnayd of my life noloshayda I'm going to be waxaan noqonayaa the new assistant manager kaaliyaha cusub ee maamulaha of La Falita and my wife xaaskaygana is going to have waxay markaa dhalaysaa oo ay sitaa a baby ilma yar markaa marka wuxuu leeyahay odagii
farxadan meel isgeeylaha shaqo cusub aan helay xaajadii ilma ii qaaday waxa weeye maanta the happiest day of my life happy waa farxad happier ka farxsan happiest ugu farxsan marka ay maraysaa maanta marka halkaadaan ku soo celiyay wuxuu leeyahay Alejandro waxa la yiri Rick baa wuxuu yiri hey waa ka qaaday ama waa ku salaamay weeye Alejandro how are you doing sidaa tahay way how are you doing وسأحسن تهاي معناه ده وسيدات تهاي today مانتا great معناه وحلا متى I'm fine وفي عنا هاي I'm good بلا متى great وأنا أحسن هاي and this is تاني the happiest day ومعناه تدي يقول فرحة بطنيت of my life إنه شيء ده I'm going to be وحنقولنا يا the new assistant manager ما يعني كاليا عصب معمولها of La Falita and my wife حاسكيجنا is going to have a baby waxay iisitaa oo ay dhalaysaa maxay yani a baby waa maxay ilmo markaa caruur markaa Rick baa hadla wuxuu hey wuxuu yiri markaa congratulations yani hambal yuu yiri markaa congratulations waa maxay hambal yuu maadaama ay tahay maanta kugu farxadda badnayd ood noqonaysid kaaliyaha maamulaha La Falita aadna noqonaysid maxaan ku radaa aabbo I'm very happy with marka hey congratulations hambal yuu leeyahay marka hey congratulations hey marka waxa la matahay hi on marka Alejandro thanks ma sanid I want to handoniya to celebrate inaan marka dabaaldego oo dabaaldeg baan ku jiraa give me is your best waxa kugu wanaagsan yani waxadeys marka your best give me your best kabacdina wuxuu yiri wali waxa ay siisaa request special lemonade ka yani leenta u qaaska ah Rick yani waa Rick oo adiga mid ku gaarka ah xitaa waliba maanta ama ay tahay maanta ugu farxad badnayd ta adiga aad ugu jeceshahay ku gaarka ah ku qaaska leemaha aad samayso isii wiil marka wuxuu yiri Alejandro wuxuu yiri marka la yiri congratulations hambali hey uu yiri ninka odaga waa ku salaamay congratulations hambali kabacdina wuxuu yiri thanks ma sanid I want to handoniya to celebrate in dabaaldego give me waxa siisaa your best waxa ugu wanaagsan oo waliba xitaa waxa siisaa request special lemonade marka lemonade waa maxay waa lean marka Rick baa hadlo xiri request special it is waa kamba request special waxyaaba u qaaska ah Rick it is waa kana when waa tambuir macnaha when goorma marka do you start at bilawaysa your new job shaqada cusub marka when do you start your new job when gormad do you start bilawaysa your new job shaqada cusub marka Alejandro hadda wuxuu yiri in 2 weeks waxaan ku bilaabayaa 2 isbuuc gudahood and I'm very excited aadan u faraxsanahay except marka laga reebo the owner yani milkiilaha give me wuxuu isiyay this silly thing shaygan doqonnimada ah oo to read ay tahay inaan akhriyo marka kabacdina Alejandro shows wuxuu tusaya marka shayga marka yani marka qaybtan Alejandro shows Rick kuma jirta cashka laakiin wuxuu sameeyay ayaa lagu sheegay oo ah markuu sameeyay yani warqadii soo saaray kabacdina wuxuu tusaya ninkii Rick way marka Alejandro wuxuu leeyahay when do you start your new job marka wuxuu yiri in 2 weeks waxaan ku bilaabayaa 2 isbuuc gudahood and I'm very excited aadan ugu faraxsanahay except marka laga reebo the owner gave me yani inuu milkiilaha siiyay this silly thing shaygan doqonnimada silly waa doqonnimo Soomaalida tirada silly yani question has no answer yani jawaab doqonnimo jawaab mala yani su'aal doqonnimo jawaab mala marka qaarkood waxa laga yaabaa dadku inay ku weydiiyaan su'aal يعني يجا يعني أنا قصيرين أو internal affairs كاجا that's why مركو حاجة ده silly question has no answer سؤال تقولني معه جواب ملحن مركو حلي هاي in 2 weeks حنقول على أسبوع جدود I'm very excited أتبع نوفر حسن هاي except مركو لقى ريبو except أم هاي مركو لقى ريبو except مركو لقى ريبو the owner ملكيلا give me إنه يسيي this silly thing شيء كان مركو يعني تقولني ماذا oo تقرير إن أنا أخلي لقى دوني مركا Alejandro كبعدنا شو سوحو تسمى مركا ورقتي Rick مركا Rick بقى مركا هلا يحيي job safety بدبا شغال
intuu yaa yiri job safety badbaadada shaqada yeah I read waan akhriyay something like this shay kan oo kale ah too sidoo kale yani I read waan akhriyay something like this too sidoo kale shay mid kan oo kale ah when markii I started here aan halkan shaqada ka bilaabiyay and I learned a lot waxaana ka bartay wax fara badan markaa ninka odaga warqadii job safety loo soo dhiibay wuxuu arkaa waa silly thing shay yani doqonnimo ah oo yani uusan ahayn inuu akhriyo laakiin ninka odaga riig buu u dhiibo tusay riig wuxuu leeyahay oh job safety ha yeah I read ha yeah waxa lama tahay yes I read waan akhriyay something like this too sidoo kale shay kan oo kale ah when I started here markaan halkan ka shaqa bilaabayay and I learned a lot waxaana ka bartay wax fara badan I learned a lot waxaan ka bartay wax badan a lot waa maxay wax badan markaa waxaa soo gooday Alejandro wuxuu yiri really markaa ma dhab xaqiiqdii wax badan baa ka barat waa macnaha really xaqiiqdii kabacdi wuxuu yiri Rick absolutely hadda absolutely waxa weeye yes bay la mid tahay oo ah qofku markuu qof ku raacayo xaqiijinayo absolutely totally يعني absolutely يعني ها يعني wuxuu leeyahay markaa I thought waxaan ku fikirayay I knew inaan garanayo everything wax kasta oo about ku saabsan job safety badbaadada shaqada but laakiin I was wrong waan qaldanaa waxaan garanaya abska yaraaba marka rig muxuu leeyahay absolutely marka absolutely waxa ma tahay yani gabi ahaanba يعني really هذا مركو ليه هاي ما دبا absolutely هذا حوي تاع حقيقين yes بلا متى قف مركو ليه هاي قف مركو سؤال فيديو كوي هذا سو أرتا أرنك أرقام تاجرسن هاي absolutely yes بلا متى مركو عتكين مكان هذا لكن معنا بان بلاد هاي absolutely وحاجة سوكا totally جبي هم بالي هذا إلا متى هاي مركو حولي هاي really حقيقة دي ما دبا absolutely ها I thought وحن أفكري thought وحكاتي من think I thought waxaan u maleynayay I know bay ka timid I knew wali inaan garanayo everything wax walba oo about ku saabsan job safety shaqada marka badbaadada shaqada but laakiin I was waxaan ahaa wrong mid qaldan marka wrong waa maxay mid qaldan w laguma dhawaaqay arta lagu dhawaaqay wrong alle marka kaashkan uu fuud yahay guys aan ku celcelinay insha Allah taala mar labaad aan ku celiyo lesson 12 labaad بارسيت قيبت اللي conversation شكايسي كدعيا ركست باركي ريك waxaa gurigiisa jooga ninkii Alejandro ahaa wuxuu akhrinaya warqadii uu eegaya job safety wuxuu leeyahay marka job safety baa shaqada ka bacdina intuu hoos ka dhigo wuxuu leeyahay I'm going to be a father waxaan noqonayaa aabo I'm going to start a new job shaqo cusub aan bilaabayaa I will read this letter waan akhrin doonaa this time ama warqadan buu ka hadlayaa letter mar kale ama waqti dambe I'm going to celebrate now hadda waxaan u baahanahay inaan dabaaldego I'm going to celebrate now hadda waan dabaaldegayaa Alejandro hadlay hadana marka Alejandro wuu baxay guriga ka baxay wuxuu aaday baarkii buu tagay Alejandro marka yani wuxuu leeyahay marka hi waa ku salaamay reegow reegna wuxuu yiri heyna marka waa un hi bay jawaabteeda tahay Alejandro wuxuu yiri marka how are you doing today Alejandro seeta maanta Alejandro wuxuu leeyahay great waan wanaagsanahay this is the happiest day of my life maanta waa maalinteedii igu farxadda badneed noloshayda my life waa maxay noloshayda I'm going to be the new assistant manager waxaan noqonayaa markaa kaaliyaha cusub ee maamulaha of laafalita and my wife xaaskaygana is going to have a baby waxay ii sitaa ilmo markaa oo ay dhalaysaa marka odayga waa faraxsan yahay waa happiest day of his life weeye riig baa markaa wuxuu yiri hey congratulations hambalyo markaa Alejandro wuxuu yiri thanks my senate I want to handoniya to celebrate inaan dabaaldego give me your best waxaad siisaa waxa kugu wanaagsan ee aad hayso wali waxaad haysaa Rick's special lemonade linta ee qaaska ee riig uu cabo ama meeshan yani u gaarka ee qaaska ah wuxuu yiri marka Rick's special it is waatana marka it is waatana when you gorma started bilaabaysaa your new job shaqada cusub
وحيري in 2 weeks وحن كلها على وصف عقودود I'm very excited أدبان أفرح سنة هاي except مركا لغا ريبو the owner ملكيلها gave me إنو سيي this silly thing شيء كان دوغني ماذا أو تريد أي تاين عن أخريو بعدين Alejandro shows تصيا أو بندقيا والقدي ريك با آخرنا يحولي job safety yeah I read one أخري something like this شيء كانوا كلا تو سيدو كله when I started here مركان هالكان بلابي I learned a lot وحن كبرتي وحبدان I learned a lot وحن بدان أيان كبرت Alejandro really مكاتبا absolutely absolutely I thought وحن أمنين كفكريي I knew إن أجهي everything وحوالبا about كوسابسان job safety بباشا غدا بعد لكن I was wrong وان غلطنا أمرك guys وقتو هذين وعنادو ما ننتو هذين وعناتو وحن ليه رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته